Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaaleyga qaaliya waan ii salaamay meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga waa walaashin Ifraax Home Decor. inshallah haddii aad ku cusub tahay channelka waxaa ka codsanayna like tirahdid, comment qurux badan ay reebtid, subscribe tana ay noogu caawisid waana ku mahadsantahay. inshallah maanta waxaa jeclaystay inaan idin la soo wadaago video yar ku saabsan oo si rooti ah u sameynayo. marka waxaa jeclaystay inaan walaalada la wadaag maadaama aan suubinayo. marka hataa bilaabanina step by step wax kasta idinkugu sheega. inshallah hadaa su'aal qabtiin way soo sheegi kartaan. hadda ugu horeen waxaa ku shubay fixiso ama qamiirso dadka soo u yaqaaneen, wax yar oo milix ama sokor cusbe haddana waxaa ku shubayaa sokor 3 qaando oo sokor rabaa inaan ku shubo. 3 qaando sokor ayaa ku shubaa, kadib waa isku walaanjina intaas si fiican isku dhex gelgelinaa. marka had saarkeysaan intii sokortii iyo cusbadii iyo fixisadii iyo burkii waxa dhan waa isku soo walwalaanjinay. marka hadda waxaa inoo dhiman intii qoyneed. marka hadda waxaa ku bilaabaa hal xabo ukun iyo ukunta hadda aragti laba waa isticmaali kartaa, laakiin hal xabo rabana isticmaalo maadaama bur yar aan isticmaalahay. markastana waxay ku xiran tahay burka intuu badan yahay inta isticmaalaysid. hadaa 2 kiilo bur isticmaalaysid oo kale waa isticmaali kartaa 2 xabo ukun marka hadda waxaa kusoo shubay bakeeri half kiis oo butter iyo hal bakeeri oo buuxo oo caano caanaha waa soo karkariyay saaid uma kulula, xoogaa qandac waaye. marka intii hadda isdhex gelgelinoyaa waxaa rabaa intaa mashiinka ku qaso. laakiin waxaa jeclaystay inaan gacanteeda iyaga fududahay, gacanta aad iyo aad ugu kalsooni badanahay. marka gacanteeda ku qasanaa burkastana markaa qasaysid waxa fiican in si fiican u qastid burkaaga. hadaa rabtid inuu si qurux badan kugu soo baxo waxayna isticmaashid si fiican gacanta ama mashiinka oo burka loogu talagalay. marka mashiinka burka loogu talagalay lagu qaso way ka jaban yahay. marka waxaa jeclaystay gacanta inaan xoog ugu qaso, xoog ku dhahe si fiican si burka lagu kala baxo. marka wax yar caanihii iyo harsanay iyo biyo kale u baahday, wax yar oo biyo aad ku soo darsaday. marka hadda intaas si fiican isku soo qasaa, wax kale ma soo dari dooni. intana isku soo rafaaqinaha kale si fiican oo soo qastoona. inshallah waa isku soo laabanayna haddii Ilaahay yiraahdo. maashallah hadda qasida waan soo dhameeyay. burka si fiican ayuu iska soo dhaxgalay, labada gacan la gala ku dhahay si fiican oo soo qasay. marka hadda waa diyaar. saacad iyo bar meel dhigi doona haddii Ilaahay yiraahdo ama ka badanbo. soo si fiican ugu soo qamiiro inshallah. wax oo degdeg miigu jiro maanta gurigaas ka joogaa. soo waxyaabo hooshleey kala iska si qabsana intuu burkayga qamiiraayo inshallah. burkana hadda waa soo daboolaa.
maasha allah saacad iyo bar kadib waa isku soo laabanay. Hadda marka waa la fidiska la gaaray iyo in la duuduubo oo loo yacni waa kuskuuso aa la gaaray. Burkaan ku dheh fabriitkeyna ah maasha allah hooyadii ka bartay mar hore ku dheh gurigeena aad iyo aad looga jeclaa jiray ku dheh maalin kasta la duubo. hore waa laga dhimay jiray laakiin alxamdulillah waa wajideen burkeena si qurux badan oo soo khamiiraysa idee ku dheh anina hooshayda isku soo qabsaday wax ka soo qabas kar guri isku soo hagaajiyay isku soo nadiifsaday wax degdeg imigu jirin. alxamdulillah hadda burkeyga marka uu imaaday waa kana hadda kuskuusa. hadda marka waa kuskuusooya burka sa arkoosin waxaa rabaa in yacni waxaan burger la gasho karo kale ama yacni sawaay saaxid ma weyneenay waxoogaa yariisa ka rabaa inuu yacni saayidiga balbalaarto marabi soo xoogaa yariis waa yareereynay inta awoodeeda gacanta isku mid maaha midna weynaa laga yaabaa midna yareeyo laakiin laabaas waa isku dayay inaa yaryareeyo xoogaa si oo burka iigu noqdo bur hamburger lagu cuni karo. maxaa la dhahaye haddii ukun la sameysanayo kale kun lagu sameysto jibnada dhexda laga gashto wax kasta lagu cuni karo inaa noqdo oo bur waxaa ka rabaa inuu iigu soo baxo maasha allah soft kaaliska arag inuu kusoo baxaa rabaa insha allah. marka la socda hadda waa dhameera waa mar dhow videoga igu dheeraanin waxaa sameeyay waxoogaa yariis waan jarjaray marka insha allah daawasho wacan haddaa ka heshid like noo saar. burka markaa kuskuusay 15 daqiiqo meel dhigay si oo yacni iigu soo hadana usoo faxo marka xoogaa yariisada wuu soo barbaraysa arkaysan sida hadaaye u yaryaro wuu xoogaa uu soo khamiire marka hadda waa inaa diyaariyaa meesha ku sameyn lahaa wax soo qaatay weelkeygii wax yar oo subaga marinaya subaga way caawina inuu burka dhulka yacni iigu dhagin hadhooti insha allah. burna korka ugu soo daadin doona hadduu ilaa yiraahdo kadibna sidiisi unbaa kusoo dhigdhigaa wax yariis gacantaas kuugu dhaweynaa adigaa baarki doontiin hadduu ilaa yiraahdo waa niisoo duube marka hadda burkaa ku shibooyaa. maasha allah tabaarakallah ka sheekeysan noogu soo baxay wax yar oo sisinayna korka ugu daadiyo bora decoration ahaan
quruxu nagu soo baxay maasha Allah tabaarakallah. Hadda sidaa dabka ugu soo saaray waaye oo foornada hore ugu soo bixiyay. Marka waxaa marinaa butter korka ka marinaa ama subag. Subagaas ayaa korka ka marinaa, kadibna waa arki doonaa, kadib dhaxda ka jeexi doonaa, gudihiisa fiirin doonaa, waa la arki doontii sida noogu soo baxo. Marka daawasho wacan. maasha Allah walaalahayga quruxda badan saan noogu soo baxay. Ugu dambeyntii marka hadda waxaa soo mariyay subagii, haddana waa tijaabinoyaa saarkiisaanba hoos kureexa. waan is soo celinoyaa burka markuu yacni saan oo kale markaa taawatid is soo celinayso waxay ku tusaysaa inay biseel tahay, dhexdani ka bislaatay. si fiican u soo baxday, laakiin waa arki doonaa gudihiisa. muu maleynaa in